madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo iyo waftigii ballanaa uu hogaaminayay oo socdaal ku maraya gobolada bariga dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay gaadheen magaalada Laasqoray ee xarunta degmada Laasqoray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa si la yaab leh waxa loogu soo dhaweeyay degmadaasi Laasqoray iyadoo oo dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Laasqoray ay kaga hortageen madaxweynaha iyo waftigiisa meel ka baxsan dhowr kiiloomitir magaalada gudaheeda isla markaasina caleemo qoyan iyo calanka Soomaaliland oo ay lulayaan ay kala hortageen iyagoo ku dhawaaqay erayo ay ka mid ahaayeen soo dhawaada madaxweynaha iyo waftigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu gaaray magaalada gudaheeda waxa ay isaga iyo xubnihii kale ee golaha wasiirada iyo waftigii kale ee wehelinayaba booqasho ku tageen qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada ee degmadaasi Laasqoray sida isbitaalada MCH-yada iyo goobaha kale ee arrimaha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo waxa intaasi kadib uu dhagax dhigay dekedda magaalada Laasqoray iyo waliba warshada kalluunka isagoo oo hadal uu ka jeediyay goobahaasi dhagax dhigana ku tilmaamay inay dhaqaalaha iyo nolosha bulshada deegaanadaasi iyo waliba dhaqaalaha Soomaaliland ba kaalin weyn ka geli doonto isla markaasina ay xukuumad ahaan buu yiri wax kasta oo ay tari karaan ama ka qaban karaan horumarinta adeegyada bulshada ay diyaar u yihiin isla markaasina ay ka qabanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku dardaaray dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Laasqoray inay nabadgelyada ilaashadaan isla markaasina horumarka iyo wax wada qabsiga isu kaashadaan geesta kale maamulka degmadaasi Laasqoray iyo guud ahaanba gobolka Badhan waxgaradka iyo odayaashii dadweynaha ku dhaqan degmadaasi ayaa waxa ay soo dhaweeyeen talaabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhagax dhigay goobahaasi muhiimka u ah horumarinta dhinaca dhaqaalaha iyagoo oo dhinaca kalena sheegay inay tahay talaabada madaxweynaha iyo waftigiisu ay booqashada ugu yimaadeen degmadaasi Laasqoray iyo gobolkaasi Badhan talaabo taariikhda geli doonta isla markaasina markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu socdaal ku tago jiidahaasi